dhagarqabe Axmed Xasan oo ah dhagarqabe ka tirsan ururka argagixisada ee Al-Shabaab oo ciidamada amniga dowlad goboleedka Galmudug ay ka fashiliyeen ismidaabin uu ka geysan rabay xuska shuhadada culimada Ahlusunna wal Jameeca ayaa fududeeyay mar kale in ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigaan dhagarqabe kale oo ka tirsan kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab. dhagarqabahan kale oo lagu magacaabo Cali Dubad ayaa ciidamada amniga dowlad goboleedka Galmudug mar kale gacanta ku soo dhigeen. Cadadana oo ah dhacdo uu ku ah gobolada dhexe. Sidee ayay wax u dhaceen? Waa kan Axmed Xuseen Diiriye oo ahaa askarigii is hortaagay ismidaamiyahan isku qanxin rabay xuska shuhadada culimada Ahlusunna wal Jameeca oo la dhigo sanad walba 17 bisha barakeysan ee Ramadaan. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Alxamdulillahi Rabbil Aalamiin. Magacaygu waa Axmed Xuseen Diiriye, magac dheer Juujoole. Waxaan kamid ahaa ciidamada Galmudug, qaas ahaan ciidamada madaxa xukuumadda Galmudug Dr. Shaakir Cali Xasan oo ilaalada qaaska ayaan kamid ahay aniga. Waxaan u mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan sidii nagu dhiirigeliyeen amniga sugudiisa ay noola qayb qaateen. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa shacabka degmada Qurceel sidii noola qayb qaateen dhagarqabihii maleegayay qaraxa inaan gacanta ku dhigno. Waxaan leeyahay maad hanga gaarto. Waxaan rabaa wax yar inaan ka sheego si igu suurta gashay dhagarqabihii qaraxa maleegayay saan u qabtay. Anigu waxaan ahay ilaalada koowaad markii ay dhamaatay xalfadii dhamaadkeedii ay taysii dhamaahaydo oo dhagarqabahan ii yimid wuxuuna ii yiri waxaan soo jeedinayaa gabay ee xalfadii dhamaan rabto uu yiri gabay waan soo jeedinayaa. markaas baan dareemay dhagarqabahan inuu gabaynu soo jeedinayna wax kale oo wado. markaas waxaan go'aansaday in dhagarqabahan labadiisa qacnood ku dhago ana sii deyn intay madaxdu ka baxayso oo meesha laga baxayo madaxdu ay ka baxayso. dhagarqabaha ana qacantiisa haya oo ay u qacansiiyeen ciidamada amniga inuu meelna iska nuxnuuxin. markaas waxaa soo gaaray ciidamada si gaarka u tababaran oo qaraxyada iyo fashiliya ayaa soo gaaray. markaasna waxay fureen fulisihii iyo wixii kala fureen. waa maasintiin shacabka waxaa weli socda baaritaano ay sameynayso wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug. wixii soo kordha waxaan idinku soo gudbi doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe. Farxaan Axmed Cabdi, TV-ga caalamiga ah dowlad goboleedka Galmudug, Qurceel.